بسم الله الرحمن الرحيم داوديال كلانتو waxaan wanaagsan Soomaaliya inaan idin soo gudbino fadlan daawad hadaad nagu cusub tahay subscribe dheh gambalelkana furo dabcan qaybta hoose nagu rabixi aragti iyo freena oo ku saabsan wararka la xiriiraan soo gelino daawadayaasheen waxaan soo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay ee aan ku eegno xaaladda Soomaaliya waxaa soo dhamaaday kulan xasaasi ah oo u dhaxeeyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo inta badan madaxda iyo agaasimayaasha warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya gaar ahaan kuwada Muqdisho iyo ururada saxaafadda kulankan oo ahaa mid aad loo soo agaasimay natiijada ka soo baxday ayaa ugu dambeyn waxa la isku afgartay in saxaafadda loo ogolaado kulamada baarlamaanka marka laga reebo kulan su'aalo lagu weydiinayo madaxda amniga oo saxaafaddu aysan ka qayb gali doonin gudoonka golaha shacabka ee xildhibaanada ayaa isku afgartay in la ilaaliyo abisam socodka baarlamaanka lagana fogaado wax kasta oo qalqal gelin kara kulamada baarlamaanka waxaana arintan loo soo bandhigay madaxda saxaafadda oo loo sheegay inay ka shaqeeyaan sida gudoonka iyo xildhibaanada ay ku heshiiyeen kulamada labada maalmood ee socday ee gudoonka iyo xildhibaanada ayaa waxa la isku afgartay dooda ku saabsan arrimaha amniga laga hadlayo maalinta Sabtida soo socota in warbaahintu ay goobjoog ka noqoto waxaana maalintaas kaliya la dhageysan doonaa khudbadaha ama hadallada xildhibaanada iyo waliba fikradaha ay ka qabaan xaaladda amniga dalka oo warbaahintuna ay goobjoog ka noqon doonto xildhibaanada iyo waliba gudoonka ayaa sidoo kale ku heshiiyay in maalinta xigta ee Axadda ah loo yeeri doono taliyaasha iyo wasiirada si ay uga jawaabaan su'aalaha amniga la xiriira iyadoo aanay warbaahintu goobjoog ka noqon doonin waxaana u muuqataa in uu fulay qorshihii xukuumadda ay kala heday in kulanka su'aalaha ama jawaabaha ay ka bixinayaan hay'adaha amniga aysan warbaahintu goobjoog ka noqon si aysan isku khilaafin ama hadallo iskhilaafsan hay'adaha amniga halkaa ay ka sheegeen xildhibaanada ayaa intooda badan ka hor imaaday qorshaha maalmihii ugu dambeeyay la waday oo ahaa in guud ahaan warbaahinta laga mamnuuco kulamada baarlamaanka balse dood dheer kadib oo ay yeeshanayaan xildhibaanada iyo gudoonka waxa lagu heshiiyay in warbaahinta loo ogolaado qayb kamid ah inay tabiyaan kulamada baarlamaanka xildhibaanada ayaa gudoonka u soo jeediyay intii saxaafadda laga mamnuuci lahaa kulamada baarlamaanka taa beddelkeedna warbaahinta la siiyo wax muujinaya calaamadooda gaararka aqoonsiga ah la siiyo ama iyo in ay ilaaliyaan amarada iyo shuruucda golaha shacabka qodobada suurtagalka ee lagu heshiiyo oo helnay ayaa waxa kamid ah in wariyaasha imaanaya golaha shacabka ay soo xirtaan jaakado u muuqda in warbaahinta ay ka socdaan calaamadahooda ama loogadooda ay ku buufsan tahay si loo aqoonsado iyo in saxaafadda ay ilaaliso amarada iyo shuruucda golaha shacabka iyo in baarlamaanka uu wariyaasha saxaafadda ka socda siiyo kaararka aqoonsiga inta ay ku sugan hoolka baarlamaanka ay tabinayaan shirka baarlamaanka qodobadan raaca ayaa la tilmaamay in hadda madaxda warbaahinta iyo waliba gudoonka golaha shacabka ay ku heshiiyeen sida muuqata maalinta Sabtida ayaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya halka ay ka jeedi doonaan aragtida ay ka qabaan amni xumada ka jirta caasimada taasoo loo ogolaaday in warbaahintu ay goobjoog ka noqdaan laakiin maalinta xigta ee Axadda oo hay'adaha amniga iyo waliba wasiiradaba ay jawaabo ka bixin doonaan su'aalaha taas oo laga mamnuucay warbaahintu inay goobjoog ka noqdaan sida ila xogaal ay noo sheegeen dadka falanqeeya arrimahan waxa ay sheegeen in qorshihii xukuumaddu ay kala heday in saxaafaddu dibadda laga saaro su'aalaha amniga la xiriira hadda uu suurtagalay maadaama la doonayo sida xubno badan ay sheegeen in fashil dhanka amniga uu jiro wadayaal subscribe saara channelkan haddii aad ku cusub tahay share garay like-tan ha ka iloobin sidoo kale haddii aad aragti qabto hoos inoogu reeb waa mahadsantiin